بالصلاة عندي لعب، أقول للعب عندي صلاة. لا نقول للصلاة عندنا لعب، نقول للعب عندنا صلاة. صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan walaalahayga muslimiinta. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. darsigeena saddexaad maanta waxaa ku saabsanaan doonaa almasxu cala alkhufayni waljabiira, masaxid la masaxaayo labada qof iyo jabitaanka. axkaam ku saabsan insha allah ayuu ku saabsanaan doonaa. marka hore waxaan ku bilaabeynaa almasxu. masaxid maxay tahay? waa imraarul yaddi calaa shayin, gacantaada shay ku marmarisid baa la yiraahdaa masaxid. maa huwa alkhuf? qof muxuu yahay isagan? qof waxaa la yiraahdaa maa yulbisu fii rijlin min jildi raqiiqa, waa wax loogu talgalay lugaha oo bacdul culamaa waxay leeyihiin waa maqaar jilicsan bay leeyihiin. marka waxaan sharda ah inoo qariyo maxalul faradka inoo qariy baa sharda ah. sigsaantin way ku daraan bacdul culamaa. marka ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha noo ruqsiyay bay ka mid tahay, oo ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa ugu naxariistay in qofka la masaxo la gashto iyo meesha jaban in iska masaxo. waa ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisii ayay ka mid tahay. laakiin shiicada way diidaan. shiicada ayaga waa naga gaar. marka waana mubaax, wayna banaan tahay. marka waxaan u baahan dadka la yiraahdo ii sheeg dadka meesha oo barafka ku dhaco joogaan oo qabowga badan, oo mar walba aysan weysaysan karin, oo lugaha aysan dhaqi karin, mar walba buudka kabahan siib saanyeel ay ku adag tahay. dadkaas ayaa aad iyo aad ugu baahan. maxaa yeelay inay kabaha ay siibaan ay dhaqaan way ku adag tahay, maadaama mar walba oo baraf dhacayo oo qabow zaa'id ay ku jiraan. dadkaas aad ugu baahan marka. laakiin culimada inta kale waa iska waafaqeen in markaas oo qufeenka inta badan culimada waa isku waafaqeen ilaa shiicada mooyee. waxaana daliil u ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam qowlkiisi: idaa tawada'a axadukum walabisa khufayhi falyamsax calayhimaa walyusalli fiihimaa walaa yaqlachumaa in shaaa ilaa man janaabah. axadkiina daweysaysanaya oo ugu jiraan khufeenka ha masaxo labada qof, kabacdin ha ku dugto, yuusan sibin ilaa qof oo janaabo ku dhacay mooye. xadiidkaasaan daliil u ah. waxaan loo shardinayaa marka hore qofka inuu weesqab ku gashto ayaa loo shardinayaa. rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadalkiisi oo ku yiri Mughira bin Shucba oo ku dhahay markoo doonay Mughira inuu ku siibo rasuulka sallallahu alayhi wasallam qufeenkiisi si uu dhaqo lugihiisi oo yani weysada. markaasuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam: dachumaa fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn. ka tag, waxaan geliyay ayagoo daahir ah ayaan geliyey. xadiidkaasaa daliil u ah. marka waxaa kaloo ka mid ah shuruudiisi marka hore inuu qariyo maxalul faralka saan soo sheegnay. maxalul faralkina waa meelaha markaas oo waajib ah in la dhaqo fi xaalil wuduu, weysada markii la joogo meeshaas inuu qariyo ayaa waajib ah. maxalul faralkina waxaa la yiraahdaa canqowga korkiisi. canqow korkiisi, hoostiisa taa lama ogolo. canqow inaad ka kormartid ayaa la rabaa. waa kaan. waxaa kaloo ka mid ah inuu asturo maxalul faradka, inuu asturo oo uusan lahayn wax meel jajeexan uusan lahayn, oo aan muuqanaynin jasadka muuqanaynin ama jasadka midabkiisi oo muuqanaynin ayaa loo baahan yahay inuu asturnaado.
kadaalika waxaa kaloo loo shardinayaa ii sheeg waxaa loo shardinayaa tataabuc ilmashi socodka inuu isra raaco uusan yani ka weyneyn oo ka dhedhiceynin adoo socotid haddii mid kaa baxdo markaas waa burayaa marka ma jirto masixid ma jirto markaas masixid ma jirto kadaalika waxaa kaloo oo la shardinayaa ninka musaafirka ah inuusan ka zaa'idsanin 3 ayaama cala layaalihina habeen 3 maalmood iyo habeenadoodii inuusan ka zaa'idsanin ninka muqiimkana uusan ka zaa'idsanin yawman wa layla habeen iyo maalin la ogol yahay ninka muqiimka gurigiisa joogo ninka musaafirka safarka ku jiran waxaa la ogol yahay 3 maalmood iyo habeenadoodii habeenkii buu ku saxanayaa qofka kadaalika sida oo qaa'idka iyo bowl kaadida iyo saxarada iyo masaxaya leebis markaas sidoo masaxaya masaxitaalka biyaha markaad gacantaada ku shubtid waa iska daadinaysaa biyaha gacantaada qoyan ayaad saas qaybta kore ayaad marinaysaa bis qaybta kore ayaad saas u marinaysaa bis kadaalika marka bacdul ulama waxay leeyihiin hoos xitaa waa la masaxayaa laakiin qolkaas xoog ma lahan haddaa hoos masaxdeedna waxaa waajib ah kor oo aadan ka tagin laakiin kor haddaa marisid hoos waa ka tagi kartaa muddadiisana waxaa ka mid ah inkastoo ay maalikiyada ay leeyihiin muddo malahan maalikiyada waxay leeyihiin ayaga muddadiisi waa ilaa uu qofka janaaba ku dhaco mooye oo faradul khabiis qof inuu ku dhaco mooye si kale uusan muddo ku lahayn laakiin muddo iyo mubdalaad ayuu leeyahay muddadiisi waa sida hadda usoo sheegnay qofka musaafirka ah yani in oo 3 maalmood iyo habeenadoodii muddadiis waa intaasi haddoo dhaafo waa burayaa mar labaad oo weysiisana wuu gashanaadan ninka muqiimkan kadaalika asina habeen iyo maalin hadday u dhammaato wuu weysaysanaa adina markaasoo gashanaya iyo labadooda mid ka mid ah in haddoo siibo labadooda mid ka mid ah oo siibo waa bis waaye saasay ku burayaan ayagana mubdalaadkooda saas waaye ayay ka mid yihiin kadaalika haddii labada xaba asiibtina kadaalika waa isku mid iyo qofka doo ku dhaco janaabo saddexdaas ayaa mubdalaadkoodii ku kooban marka hore in qofka muddada uusan dhaafin midda labaad waxay tahay inuusan labadooda uu siibin oo mid ka mid aan uusan siibin midda saddexaad waxay tahay qofka doo ku dhaco janaabo way ku buraysaa intaas iyo si hore usoo sheegnay shuruudooyinka waxyaabaha ka mid ah iyagana way ku jiraan haddii intaas laga helo maba intaan yani mubdalaadka la gaarinbo ku ansaxaya inaad gashitid oo masaxdid jabiirada haddaan usoo laabana iyadana jabiirada waxaa la yihahdaa meesha jabsan jirkaagii oo maxalul wuduuga oo yani oo kaa jabtay jabiira waxaa laga wadaa yani kasri jabid waaye qofka inuu jabo oo kabacdin la kabo kabitaalkaas marka oo la kabay ayada ma loo shardinayo yani dahaar inay ka hormarto looma shardinayo falaa yashtaridu taqadum dahaara can aljabiira kadalika walaa xadda lahaa fi muddati masxu ljabiira jabiirada jabka looma shardinayo ayadana muddo looma shardinayo xad ma lahan ayada muddadeeda waxay noqonaysaa bes xataa tabra aljaraaxata ilaa ay jabitaan meesha jaban ay ka wanaagsanaato ay ka ficnaato ayaa loo shardinayaa waxaan waajib ah jabka korkiisa inuu masaxo haddoo ka tago markaas waa ma ansaxayso salaadiisii waxaa waajib ah inuu masaxo alaljabiira jabiirada korkeeda inuu masaxo wagasli alamaakin asaxiixa allatii xawla aljaraaxa inuu dhaqo meelaha oo jabka gaaraheedii inuu dhaqo ayaa la shardinayaa marka waxaan loo masaxayaa hal mar gacantaada si oo qofeenka u masaxda ama la masaxiisa hal jeeraan masaxiisa bis maratan waaxidatan ayaa laga rabaa bis inaad masaxdid maxaa yeelay diinteena culeys ma ahan ilaahay subxaanahu watacaala culeys nooguma dhigin maxaa yeelay diinta way fududahay si qofka baniaadanka oo muslimka oo mu'minka ah
aysan ugu adkaaninba ilaahay subxaana watacaala xikmadiisa ay kamid tahay. waan waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala nooga naxariista ay kamid tahay qofkaanka in lama saxo iyo meesha jaban in lama saxo. haddii la dhihi lahay waxaa la dhaqo waa culays badan ay noqon lahayd. marka insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalahayna insha allah walaalahayna kale halsii gaarsiiyo si khayrka ay aygana ugu qayb qaataan, adigana ajar ilaahay subxaana watacaala kuu siiyo. kamaa bayana rasuuluna sala allahu alayhi wasalam addaalu cala alkhayri kafaacilihi. wuxuu rasuulka sala allahu alayhi wasalam ninkii khayrka dadka tusa wuxuu lamid yahay asagoo sameeyey oo kale, asagoo ninkaas ajarkiisa wax laga nusqaaminaynin. marka aan sii sheergarayn insha allah walaalahayna aan sii gaarsino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.